أماني وحو كو أماني إنا يا هايان كو خيرك ودقدقا عبادة ودقدقا صلاة ودقدقا وناق السميستي سي ودقدقا إلهي الرالي قلنتي سي ودقدقا ويدعوننا رغبا ورهبا مركينا عابديان إنا بريانا وحين نقو بريان با إلهي يري جعيل نقو بريان عبسبين نقو عابديان إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين با إلهي يري هو أنك نوخش عسن بيهايين با إلهي dadka ilaahay uu ammaanay ee quraanka lagu cadeeyay ammaantooda sifaadka lagu ammaanay waxa kamid ah taacada u degdegayeen ilaahay taacadiisa u degdegayeen ilaahayna waxay ku caabudayeen labada sifay ku caabudayeen cabsi iyo rajo goorma muuminka laga rabaa cabsida goorma rajada laga rabaa cabsida qofka muuminka waxa laga rabaa waa intuu caafimaad qabo weeyaan intaad nooshahay eed caafimaadka ilaahay ku siiyey ee nabadgelyada aad haysatid ee naftu ay kugu jirto markana laga rabaa inaad cabsi ilaahay ku caabudo rajadana goorma la rabaa inay badato rajadu waxa la rabaa inay qaalib noqoto amarkee waa marka sakaraadku ku qabtay ajashu ay kugu soo xaadirto markaas la doonayaa qofka muuminka inuu yiraahdo ilaaha aanu tagay waa ilaah kariima waa ilaah raxiim aanu tagaya rabbigay wanaagina kala kulmo mooyaane wax xun kala kulmi maayo waa inuu qofka muuminku markaa yiraahdo laakiin inta caafimaadka haysi ilaahaadka ilaahay ku dhameystiray ee noloshana aad haysatay talaabsanaysid haddaad noqoto rajo ku nool dad macsiyo haddana isagii oo qofka ku jira hadduu ilaahay naxariis rajeey ka warrama ma soconayso adoo ilaahay caabudaya oo sadaqada bixinaya oo soomaya walladina yuutuna ma ataw wa qulubuhum wajlah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiquna ba ilahay dadkii wanaagsana waxa ilaahay ku amaanay way soomayaan salaaday la imanayaan zakaday bixinayaan waxaan ku arsaaqnay bay dhiibayaan xubnahoogay nagu adeecayaan ba ilaahay yiri iyagoo hadana qulubtoodu ay cabsoonayso oo isleh talow acmaashaasi bilo ilaahay kama aqbalinba iyagoo cibaadaysanaya ay hadana cabsoonayaan iyagoo taqwa diilay hadana ilaahay ka baqayaan iyagoo safka hore ku jira ilaahay ka baqayaan iyagoo laylan wa nahaaran ilaahay taacadiisa ku dadaalaya ay hadana cabsoonayaan rajadu goorma la rabaa qofka muuminka inay u timaado waa marka la qabta la rabaa inuu yiraahdo hee rabbigay waa kariim ibn mas'uud radiyallahu anhu sakaraadkii markuu uu riday Uthman ibn Affan baa soo booqday markaasuu weydiiyay ku yiri Abdullah yow maxaad u baahan tahay balii sheeg buu keenay halkee kuugu daran maada tashtaki maxaad ka ashkatoonaysaa maanta balii sheeg oo halkee kuugu daran wuxuu yiri meesha iigu daran Uthman oo ma ku sheega dhunuubtayda iigu daran buu dhunuubtayda ابن مسعود مركابو كودي فماذا تشتهي هذانا محاد جعشاي بلنو شيء الى قفك مركو حنونسن yahay labadana la weydiiyaa moogta warniyo halkee kuugu daran oo laga hayaa iyo nafsadaadu maxay doonaysaa naftaadu maxay doonaysaa inaga maanta qofkii la halkee kuugu daran halku sheegi lahaa war halkee sheegi lahaa halka ugu daran laga hayo mufarta ku qaban halka baa la iga hayaa halka baa la iga hayaa ka kalna wuxuu leeyahay dhakhtar baan kugu yeedhiyo ma dhakhtar baan nafku soo celinay ibn mas'uud wuxuu yiri markii Uthman uu ku yiri halkee kuugu daran wuxuu yiri dunuubtaydii baa igu daran buu maanta uu dhaafay markaa Uthman wuxuu yiri hadana maxaad jeceshahay balii sheeg naftaadu maxay doonaysaa markaa buu rahmat rabbi naxariista rabbigay baan doonayaa buu maanta yaan doonayaa naxariista rabbigay طمع waxa la doonayaa طمع inuu bilaamo marka aad hatta qofku marka uu xanuunsan yahay la dul tago waxa sunnah in la yiraahdo la ba'sa alayk dhibaato kuma saarno ha cabsan ha walwalin xanuunkan miyaa waa lagugu meydhayaa dambi dhaafaad ka helaysaa ilaahay baad ugu dhawaanaysaa
darajaadkaaga kor loogu qaadaya waad ka kacaysaa salaama insha Allah dhibaato arki maysid waa in qofka la yidhaahdo لأن مركا قفك مركا ودمنا يانا ودشي سوحا لقول لقنا توحيدك لا إله إلا الله لا إله إلا الله ده لما يداد ده تدادي ولا إله إلا الله ده تدادي واحد لقى يا شيطان كانوا سكة الأوت السوق يدادو وما قال بانه مسلم بانه وعروا قفوا كل انتبه أدوك سقوا عرونا لكن لقنوا موتاكم لا إله إلا الله كينا نقدمنا يبو نبي يري وحاد قول لقنتان لا إله إلا الله مقاشية وياه isaga dushiisa ku dhahada kelmadaas soo markaa kaaga soo dabiicilay isaguna kelmadaas haduu kelmada qofku markay ka baxayso naftiisu ay noqoto kelmadaas waa kii nabigu lahaa jannu galay man maata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa allah dakhala aljanna wa fi riwayatin man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna haduu u dambayso qowlkiisa kelmadaasina jannu galay buu nabigu alayhi salatu wasalaam jannadu markaas waa shayga la doonayo qofka adduunyada intuu joogo cibaadada ilaahay aad caabudaysa labada ku caabud tamac ilaahay naxariistiisa rajee oo jannadiisa rajee oo dambidaafkiisa rajee oo maghfiradiisa rajee oo ridwaankiisa rajee cabsooyo dhinaca kalena ilaahay caanadiisa ka cabso oo cadaabkiisa ka cabso oo waxaad mar walba soo dhigtaa ilaahay aad u tagaysid waa kariim naxariis badan weeyaan عمل كان مركا أنقبنينه مر والبا واحد كوبنين يسلب هذا الشيء معاصي مركا نقطنا نفط واحد اللي قاعد بسيا عذابك إلهي عمل ونكسن أو طاعة مركا نقطنا نفط واحد اللي هردق الثوابك إلهي عمل كان وكاسين يا قفل يلا هردق النفط الله هذا أصلا بأدونك يلا معروف يا منكر معروف وواحد وناقة شريعة إنك أمر سنة التي مهدد معروف كمركا قبنا سنة جنة لسردقة وحا منكر شريعة أي كار ريبتي مركا النفتي الشيطان كل عي كليه هنا عرض إلهي عذابك إلهي بالهردقة نفط دنا جنة إلهي مركا نوب بلنقاضي جنة الله ينقيه دي أمين هذا جنة ودار مقع بدن بقرآن إلهي كل شيء إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين في جنات النعيم إن للمتقين في مقام أمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قرآنك إلهي تبارك وتعالى وعلى انت النار تأكورما إلا يقبى إلهي جنتك كورما هذا يسليكي آياتها قرآن كمرقي اللباري آخرة كورمايا لفظك وكيمد الآخرة وعلى وقادين بقول يشان يتوان قربا إلى حيد الآخرة الدوية مرقي نقطنا لفظك الدوية آياتها قرآن كوحا كيمد مقعيدة بقول يشان يتوان جارو جنة ودار إلهي تبارك وتعالى بني آدم وحي كل راحي سنة ينودن لقود ما يسترين يانا قليا إن الأبرار لفي نعيم دتك أدونك دوشيدا إلهي كقعب صدا إلهي كقبقى أيا إلهي جنة ودياري دار السلام دارت النبت قليدا دار الخلد دارت وارتانكا دار الحيوان با إلهي دارت نلوشا وصاحبك هي سديد مقع با قرآن كان لقو شيئا جنة وإلى إلى سديد مقع جنة عدن جنات النعيم جنة الخلد جنات الفردوس وكن نبينا لها عليه الصلاة والسلام إذا سألتموه فاسألوه الفردوس أداد إلهي ويدي سنيسان وضباهي أشيغان إسان بنبي قيدي فردوس إلهي ويديستا فإنه أعلى الجنة جنويك أيضا أقصر الرئيسة وأوسط الجنة أيضا أنا أقبر تميسم نبي قيدي وفوقها عرش الرحمن سقف جيغ وحا هذا عرش الرحمن كا ومنها تتفجر أنهار الجنة
وبيالك الجنة مرو دنا أيده كبر قمام رسولكم فردوس الأعلى الله ينجي فردوس تدكي جنة قيمة هيك قرتي وحا كملها صحابة محمد أويني مدو أيا نبينا أوتي مدو مركا كعبا يسحنون كلا إلى هذا قلل كصوحدة صوحتان ودعي جرتي مركز النبي أوتي مدو عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنا وان صحابي كنت وان دعا وحنون آدو دروين حنون كاسي الله ينقبل بادية دتكو هيان الله كقادو وحنون قفكم مال شأو كل دعو وسكور قبل ومير دبول سما يجيبي سودا ما انكي سودا ما تجايا مركز النبي قال أوتي مديتري إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي أن لا أتكشف يا رسول الله جدتك أيا كل دعوان صوحا لأن مركان مرض أيا يقبل لها أنتو والله أركا إلهي إيوي دي بيتري حنونك إلهي إنه يقابل مرضنا يقبل له منه مركب النبي عليه الصلاة والسلام وعود إن شئت صبرت ولك الجنة هداد دونت الجنة أيام كوجو هداد دونت واد الصبر حنون كاسو الجنة إلهي كوجو سين دونا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ذاتك الدنيا دوشة لكو الصبر كو أتكيست بلايدي مصيبة لا سود درستا ثواب كوجا الجنة إلهي كدقيا أجر كوجا بلا حساب إلهي سينيا هداد دونتنا وانكو عين إلهينا عز وجل إنه كعافية حنون كابن كوبري مركبتنا ونسكن نقول إيكادي لأنه ويسون نقطة النبي يؤتي مدي مركب النبي عليه الصلاة والسلام وحي كتري يا رسول الله وانسكات كيسني إله الجنة ويدي بكتري بس إيش كده مربى هذه الجنة لقوه لا يو هلقا كداف لكن مد إله ويدي ما شان دون هاسكا كده مرض ينيق بيله من بس iyadoo miyir daboolantay oo maankeegii uu tagay ayay xishoonaysaa ay cawradeeda dhowranaysaa maantana innaka waxa laga yaabaa gabdhaheena qaarkood iyo maaragtaane gabdhahayna la dhashay qaarkood inay gabadhu jirkeega halka ugu qurux badan ay istiraada ragga tusuha kugu soo eegtaan waana calaamaatu aakhir az-zamaan nabiga sheegay laba qolo adduunka iimaan buu nabigu dhoo soo socota qolab jeeda la wato dadka dariiqyada intay qabtaan ku garaacaya iyo gabdha maaragtaanay ismoodaya dhar inay xidhan yihiin wada qaaqaawan buu nabigu yidhi kuwa jannada gali maayaan jannada inay galaan iska daaye carfiga jannadana urini maayaan carfiga jannadana waxaa la uriya udgoonkayga 500 oo sano marka jannadu kuu jirto ayaa udgoonkaygu qofka soo gaadhaa labadaas sinfi buu nabigu leeyahay hadda arki maaye waa rag budad bay wataan oo dadka dariiqyada intay ka kaxeeyaan bay ayay la dhacayaan oo gardarray qofka u garaacayaan iyo gabdha maaragtaane dhar inay sitaan bay ismoodayaan kaasiyaatun caariyaad baa nebigu yidhi dhar inay xidhan yihiin bay moodayaan dharna ma xidhno way qaawan yihiin baa nebigu yidhi maa'ilaatun mumilaat jidadka markay marayaanna way isqalqalloocinayaan wixii meelaha rag ag joogana way qalluucinayaan buu rasuulku yidhi sidaas ku qalqalloocinaysa ragguna sidaa u sii eegayaan ula qalloocsamay إذا بقول ورها إيجنا عندها قلابو وزيناها للناظرين أبوي لا حول ولا قوة إلا بالله جنة قال ما يا أبو نبي يقول كواسي عرفك جنة هل ما يا جنة مرك عرفك وح الله لا شم بقول وصل مرك مش لا صعد وقفك وجرت قبل المؤمنات يا صحابية دم مدون ayadoo maankeygii iyo miyirkeygii uu daboolmay ayay ka fikiraysaa inay cawradeedu aysan baylahmin markaa bay nebiga ku tidhi xanuunka haddii janno ilaahay igu siinayo iska daa laakiin meeshaan doon han iskaga dhace maradu inay iga baylahmin bas inta ilaahay weydiin xishoodku fiicana haweenkana ku see fiicana waa u duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ibnu cabbaas allah raalli ka noqdee ayaa zamankii dambe taabiciintii dadkii markaa nebiga aanan soo gaadhin ee saxaabada nebiga soo gaadhay buu ku odhan jiray alaa uriika imra'ata min ahli aljanna haweenay ahluljanna ama ku tusaa markaa bay odhan jireen haa haweenaydaa madow ee halkaa maraysa waa ahlaljanna buu odhan jiray ibnu cabbaas cataa ibnu abi rabax buu u tilmaamuu ka yidhi cataayow haweenaydaa madow soo ma arkaysid haa waa ahlaljanna weeyaan
haweenka jannada galaya aad bay u badnaayeen maalin gabadh baa tidhi 10 mubashiriina biljanna baa la sheegay hawa dumarkii jannada galaya hamaa la sheegay khadiija radiyallahu anha almu'miniin mubashira biljanna kaligii jibriil calayhi salaam ayaa samada uga yimiday markaa buu nabigeena u yimid calayhi salaatu wassalaam wax kala ma sido allaha salaamku salaam ka wada ayuuna u sidaa khadiijata alkubraa radiyallahu anha almu'miniin buu u sidaa u yidhi yaa muxamed almu'miniin khadiija allaha salaamkaas soo salaamayay waxaana laygu yidhi u bishaaree qasri jannada ku yaalla ilaahay u diyaariyey أنس بن مالك رميصاء أم رميضاء أيضا ومبشرة بالجنة ونبينا عليه الصلاة والسلام أيا كيري سليمي حليت ولا جنة أيان قالوا إلى هيئة التسي أضا يهرس عدنا وانكو أركب رسولك كسوي فاطمة إن محمد عليه الصلاة والسلام وأيضا ومبشرة جنة والله بشاريي ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يا يدي فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة إن أنت إذا فاطمة برسولك يدي هوينك أمة النبي محمد الجنة قالي دونا وقبضها وقود رجس الرسول أكبر وقبضها برسولك سمية رضي الله عنها يدنا وأهل الجنة ويدا ينن كيدي ينن كيدي عمار مركو النبي قد دل يمدي أيكم مقالة مكة dhagaxdeeda iyo jagaceyga lagu cadaabayo waa markay diintu qariibka ahayd ee Makka la cadaabayo muuminiinta ee Quraysh ay cadaabaysa saxaabada rasuulka ayuu nabigu kor yimiday Sumayya wa Ammar iyo odageeyga Yaasir iyo inankeyga Ammar oo la cadaabayo markaasay yiraahdeen ad-dahru hakada ya rasuulallah sanadka oo dhan annakum dhibka iyo cadaabka baan ku jirayna markaa buu nabigu yidhi sabran yaa aala yaasir fa ina mawcidukum aljanna sabra buu nabigu yidhi adkaysta abaalkiinu ininka waa janno weeyaan hadday jannada ay maqlaan waxalii waxa dhibaato adduunyada la soo daristo dhan way halmaamayeen iyagu way bugtaa haweeneydaa madow eeg xanuunkay qabta eeg way dhacaysaa suuxdin bay leedahay laakiin markuu nabigu ku yidhi haddaad sabri lahayd janna ilaahay kuugu bedeli lahaa iska daa bay ku tidhi bas halkiisa ku dhaaf rabiicata binu kacb alaslami radia allahu canhu khaadimkii nebigeennu ahaa calayhi salaatu wassalaam ahla sufihii magaalada madiina qareen iyo qaraabo aan ku lahayn nin ka mida ayuu ahaa masaajidka nebigeenna mu'akharadiisa dambe ayuu deganaa ahla sufuhu waxay ahaayeen rag maalmo dhan ayay afkooga aynan heli jirin cunto ay geliyaan abaa hurayra ka mid ahaa markay nebiga ag fadhiyaan baa la yidhi xataa cawradoodu sidaynan u muuqan marada yaray sitaan ee guntiga ee hoosta lagu xidho ayay labada lugood intay qabtaan bay isku xajinayeen baa la yidhi iyagoo cawradooda nebiga ka qarsanaya dhar la'aan cunto la'aanna nebigaa u yeedhay maalin ahlu sufaha laba timiru nebigu siisiiye laba timira maanta aduma ku qadayn lahayd barwaaqaan ku jirnaa inagu barwaaqo nicmad shukrigaa inagu yar maanta laba timiru nebigu u dhiibay ahlu sufiya war abaa hurayra oo labadan qabso war rabiic oo labadan qabso war fulaan oo labadan qabso abaa hurayra allaha raalli ka noqday wuxuu yidhi xabadna waan cunay markiiba oo waan gaajoonayay xabadna halkaa guntiga ayaan ku duubto ku laabay markaa buu nabigu igu yidhi lima rafacta haadihi ya abaa hurayra xabaddan timirta halkan aad gelinaysa maxay tahay cunde markaasuu yidhi hooyadii baan u geynayaa buu ka yidhi markaa buu nabigu yidhi hooyadaana annakaa kuugu dhiibaynay iska cun buu ka yidhi abaa hurayra waa ninka maanta xadiiskiisa markaad maqashaan aad ku raaxaysanaysaan xadiistaa aan inta badan aan sheegayno o dhan isagaa wariyay inta badan laakiin uu sabray uu tabcay diinta tacab buu geliyey diinta uu gaajooday diinta uu u huray wuxuu jeclaa inuu magaalada madiina ka xogsado uu karayay laakiin wuxuu gartay jawaahirta nebi maxamed afkiisa ka soo baxayso ummadda u reebaya ilaa qiyaamaha